السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا يوتيوب كيغا كوحران كلغين وانيدي صلامي داودايال كوسو دوادا channel كان عصوب سبسكرايب سار لايك شير مادارو غارسي فيديوغان لو وداك دمان أصحابتا يو فاميلكاغا waxaan doonayaa maanta inaan gudbiyo dagaalka ka dhaxeeyay Israa'iil iyo Iran saaka waxay sheegeen Iran weerar culus buu qaaday wadanka Israa'iil kan taalo fara badan ayuu ku dhuftay magaalada Negev iyo magaalada Beersheva. I think that's how you say it, Beersheva ayaa mishaal culus lagu dhuftay magaaladaas sidoo kale waxa dhacday shalay toole meelaha galabtii Iran waxay yiraahdeen gantaalo fara badan ayaan u dirayaa ciidanka saldhig ee Mareykan oo ku taala wadanka Qatar iyo wadanka Iraq mishaal fara badan ayuu diray dadka shaqaalaha meesha joogay waxaan islahaa dad badan baa dhimanaya laakiinse qofna mid dhima Mareykanka ma aragtay weerarka ka hor way ogaadeen inay Iran soo weerarayso markaas saas daraadeed shaqaalaha iyo dadka ciidanka saldhig joogay waxay dhaadeen meesha ka baxa shaqaalaha Iran ba soo socda so marka nobody died video ba bara bulshada ka wareegay oo ma aragtay dadka Qatar ku nool I think meelaha suuq bay joogeen dad fara badan oo qaylinay oo cararayay because waxay maqlayeen gantaalaha ciidanka saldhig lagu dhuftay Trump uu tweet soo saaray Iran iyo Israa'iil labadooda wadan ay sheegayeen peace inaga peace barramna nabadgelyo barramna inaga dagaal ma rabno bis peace saas daraadeed Donald Trump wuxuu yiri ceasefire agreement baan ka shaqeynaynaa and it's about time labada wadan inay heshiiyaan oo ma aragtay nabad inay ku noolaadaan Filistiin Israa'iil baan ka taalo cusub u diray xeryaha qaxootiga ee Gaza waxa la sheegay 20 qof baa dhintay wallahi aad baan ku xumahay walaalaheena Gaza Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada firdaws u geeyo war is never a good thing people in Gaza people in Middle East they deserve to live in peace haddaad xasuusatay 2003 markii Mareykan soo weeraray wadanka Iraq 2 milyan oo qof ayaa dhintay haye laakiinse dagaalkan waxa ka dhuwan Iran markay soo weerareen Israa'iil Mareykan waxba ma sameyn Iraq 2003 markay soo weerareen Israa'iil maxaa dhacay dagaalka adduunka ayaa ka dhacay waxay ma aragtay UAE ba garab istaagay Poland NATO oo dhan ba garab istaagay Iraq wala burburiyay laakiinse Iran soo kala ma Iran lama burburin karo because Iran buuro fara badan ay leeyihiin wadankaas invasion duulaan oo toos ma qaadan karaan dadkan ma garanaysa so Donald Trump waxa uu og yahay marka and we'll see how things go muuqaalkan intaan aan koobin and subscribe ku dhufo share like meeldaru gaarsi and please subscribe to this video. I love you guys so much. More content will come up soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa